السلام عليكم أصحابتي كسو دواada kanaalkeena Axmed Warta maanta waxaan rabaa inaan sharxo film magaciisa yahay Bone kaasoo la sameeyay 2019 daawasho wacan oo taxadir fadlan anaga hilmaamin subscribe like share mahadsanidin filimku waxa uu ku bilaabanayaa gabar lagu magacaabo Melinda taas oo ku nooleed dhankaas iyo saxaraha waxay aad u isticmaali jirtay sigaarka hadda waxay u socotaa dhankaas iyo gas-triga waxayna wadataa gaarigeedii saas darteed waxa ay rabtaa inay gaariga soo hagaajiso waxa ayna geysay iyadoo isticmaalaysa sigaarkeedii goobtii ugu tala gashay inay geyso balse waxa la yaab kale oo ay la kulantay ayaa ninkii asaga inuu isticmaalayo sigaar aad ayay u heshay maadaama uu hawbigeedu yahay inay isticmaasho sigaarka aadna u jeceshahay sidaas darteed ninka ayaa u sheegay in iska caaytaa waxaan balse Melinda ayaa ku jawaabtay ugu yaraan maalintii waxaan isticmaalaa 10 iyo ka badan sidaas darteed ninka uu la yaabay waxayna ku soo laabatay goobtii shaqada tani waa saaxiibteed oo kala shaqeysa goobta taasoo lagu magacaabo Sheila balse wiil ayaa meesha imaaday kaasoo rabo in loo adeego Melinda ayaa ku jawaabtay soo dhawaaw maxaa rabtaa sidaas darteed uu iska dhagatiray wuxuuna bilaabay inuu agmaro Melinda ayaa la yaabtay waxa uu sameeyay yarkii sidaas darteed waxa ay shaqadeedii ka qabsatay goobtii ay ku lahayd sidoo kale waxay bilaawday inay iska isticmaasho telefoonkeedii markii ay shaqadeedii dhameysay si kastaba ha ahaatee waxa imaaday milkiilihii meesha kaasoo lagu magacaabi jiray Fred waxa uuna weydiiyay shaqada sida u socoto iyo wax walba meesha ka dhacay inuu weydiiyo Melinda ayaa ku jawaabtay saan ma aha shaqada si la raban uma socoto balse dhibaatada jirta ayaa ah gabadha inaysan shaqadeeda qabsanayn sidaas darteed markii loo wada sheegay waxay bilaabeen inay khilaaf dhexdooda ka dhacaan labadii saaxiibo oo kala ahaa Sheila iyo Melinda Sheila ayaa weydiisay maxaa sameynaysaa waxay bilaawday inay video ka duubto sidaas darteed way ku qeylisay balse waxa la yaab kale ayaa ah inuu milkiili meesha markii uu imaado uu sheegay inay si wada jir u shaqeeyaan balse kuma faraxsana Melinda waxa ay sameynayso gabadhan sidaas darteed waxa ay bilaabeen inay labadooda kala madax adeegaan mid walbana iskeed ay u shaqeyso kani waa Fred oo ka xun waxa meesha ka socday iyo Melinda qaabka ay wax u wado sidaas darteed waxa uu sheegay qaab maamuleedkeeda inay wax ka bedesho sidaas darteed wuuna ka tagay balse hadda waxa meesha ka dhacaya ayaa ah inuu soo laabtay yarkii hore oo rabay in loo shaqeeyo markii uu soo laabtana Melinda ayaa bilaawday inay soo dhaweyso ayna weydiiso wax walba meeshan laga rabo inay sii doonto sidaas darteed uu ka dhiga adeeg waxa uu aaday gabadhii kale oo Sheila ahayd markii uu meesha soo galay waxay bilaawday inuu u sheegto shaqadooda in la qabsado maadaama maanta ay ku aadan tahay maalintii la hagaaji jiray meesha uuna ku soo aaday maalin xun waxa ka raali gelinaysa Sheila waxayna sheegtay in loo adeegi doono balse shaqo meesha laga haayo si kastaba ha ahaatee intaas kadib maxaa dhacay Melinda ayaa keensatay askari ama ilaaliye gaar ah kaasoo isha ku hanaya Sheila oo saaxiibta Melinda ah waxa ay goobta shaqada ka sameeyso iyo sidii shaqada ay u hayso hadda goobta iyadoo la joogo Melinda ayaa sameynaysa wax walba oo shaqada hayso balse Sheila ayaa iyadana video ka duubaysa askariga iyo Melinda askariga ayaa dareemay una sheegay Melinda waxa ay sameynayso sidaas darteed asaga ayaa u sheegay inuu xalid doono wax walba meeshan ka yaal maxaa dhacay intaas kadib askariga ayaa weydiiyay maxaa kugu kalifay inaad waxa sameyso oo ma video aad duubto meeshan shaqo uma imaamaya ayuu dhahay balse Sheila ayaa u tagtay Melinda oo weydiisay waa maxay ninka maxoona iga rabaa ayada ayaa ku jawaabtay ma aqaan waxa uu hadda sameynayo iyo wax walba uu rabo sidaas darteed Melinda ayaa go'aan ku gaartay inay ka qaado telefoonka Sheila goorta ay shaqeynayso aad ayayna u wadaftay waana ka qaadatay waxayna u sheegtay inaysan isticmaali doonin hadda secretkeeda ay iska isticmaalaysaa waxayna joogtaa meel kamida gurigeeda balse Melinda hadda jeer waxay ka fikiraysaa sidii meeshan loo hormarin lahaa mana ku faraxsan waxa meeshan ka dhacay yarka ayaa soo laabtay labadooda ayuu si wada jir u la hadlaya hadda wuxuuna u sheegay goobta inaysan ahayn goob shaqo ku wanaagsan sidaas darteed inay wax ka bedelaan Sheila ayaa aad u xumaantay warka uu yiri wiilka meesha taagnaa wuxuuna weydiiyay sababta ku kaliftay inuu dhaho yarka ayaa ka xanaaqay waxa uu dhahday Sheila wuxuuna bilaabay inuu xabad rido sidaas darteed aad ay u naxday Melinda maadaama ay tahay goobteeda shaqada meeshan wuuna ka raali geliyay wuxuuna u sheegay Melinda inuu yartaan wax u sheegay kaliya sidaas darteed way ka aqbashay waxayna dhahday waxa marba soo laaban gabartii ayaa ka dhaqaaqday maadaama aad ay u cabsatay yarkii ayaa bilaabay inuu hubkiisa dib u qarsado oo uu weydiiyo Sheila waa maxay wax ay kugu haysato maxaan idinka dhaxeeyo gabartii ayaa ku jawaabtay waxay rabtaa hal jeer inaan saa'id u shaqeeyo anigana taas ma awoodo intaas kadib maxaa dhacay tani waa Melinda oo shaqadeeda haysata balse waxa la yaab kale ayaa ah in hadda jeer ku fikirayso sidii gabadhan ay meesha u saar leed maadaama ay shaqo haysan yarkii asagana meesha ayuu joogaa wuxuuna rabaa inuu labadooda kala dhaxaadiyo hadda Sheila ayaa rajeynaysa inay wax walba isku tooyso dibna ay u soo laabato dukaanka ay ugu imaadeen dad makiilayaal kuwaas oo rajeynaya in ay kan wax gataan balse waxa la yaab kale ayaa ah in Jack meesha kamid ah inay saxid ay bilaawday taasoo go'aankada aysan lahayn yarkii ayaa ka xanaaqay waxa ay sameynayso una sheegay tan inaysan ahayn inay sameyso aad ayuu u xumaaday
yarkii ayaa ku jawaabay tan macquul maahan wax ay samaysana wax oo la rumaysan kara maahan. Melinda ayaa dhahday muxuu samaysay sidaas darteed gabadhii ayaa ka xanaaqday wax walba oo sheegay yarkaan una adkaysan weysay waxa ay bilowday inay dhankeeda ka qeyliso dagaal ayaa meesha ka bilowday kaas oo u dhaxeeya yarkii iyo Sheila sidaas darteed waxa uu bilaabay inuu gacan ula tago maadaama qeyladii ay sheegayso iyo wax walba oo ku hadlayso uu adkaysan waayay markii uu bilaabay inuu gacan ula tagana waxa ay dhibaato soo gaartay gabadhii maadaama uu baskoolada soo baxay oo rabo inuu dhibaateeyo. Melinda ayaa bilowday inay ka celiso ee dhahdo iska dhaaf balse uu ka dhiga adeegay wuxuuna rabaa inuu dhibaato weyn u geysto sidaas darteed Melinda ayaa guriga aaday waxaana bilowday inay biyo soo ka karsato biyaha ay soo qaadatay waxaana u imaatay yarkii way u wacday sidaas darteed markuu soo jeestay wajiga ay uu shubtay halkaas ay dhibaato ku soo gaartay yarkii waxaana go'aansatay inay meel ku xirxirto ay dhibaato u geysato asaga maadaama uu dhibaato ka weyn geysan rabo markii ay xirxirtana waxa uu sheegtay inuu shaqadan gacanta kala baxo aysan ahayn mid asaga u taala maadaama ay yihiin laba saaxiib Melinda iyo Sheila labadaas oo ay ka wada dhaxayso shaqada ayna mas'uul ka tahay Melinda sidaas darteed yarkii ayaa aad u la yaabay maadaama uu isdhahay garab ayaa ka helaysa Melinda ay ka xigsato Sheila sidaas darteed waxa uu sheegay wax walba meeshan ka socdo inuu asaga oo rabo xal inuu bedelo balse Melinda ayaa u bedeshay waxaas una aragto wax xun sidaas darteed yarkii ayaa ku jawaabay waa maxay wax aad samaynaysa Melinda tani ma aha mid saxan haddii ay dhankaada ka saxan tahay aniga ayaa dareemi kara wax walba maadaama uu haysto maskaxda inaysan joogin ay isticmaasho sigaar sidaas darteed waxay u sheegtay inay taam tahay wax walba meesha yaal iyo wax walba dhacayn ay og tahay uusan ahayn inuu asaga u sheego sidaas darteed yarkii ayay sigaar siisay waxaana bilowday dhaawacii soo gaaray inay ka dhaydo meesha ay wax ka mariso sidaas darteed hadda waxay joogtaa dukaankii waxayna rabtaa shaqadeeda si nidaam leh inay ku qabsato maadaama labadii qof ay iska dhex saartay hadda yarkii ayay siinaysaa dhibaato walba soo gaartan waxa uu sheegaysaa haddii uu laabto wixii hore inay dhibaato tan ka weyn gaari doonto yarkii ayaa u aqbalay oo yiri waa diyaar hadda waxaan rabaa inaan shaqo bilaabo oo aan nafteeda u shaqaysto intaas kadib hadda Melinda ayaa daawo siinaysa yarkii waxayna u sheegtay wax walba inuu caad iska dhigo oo isdajiyo balse dhibaatada jirta ayaa ah inay rabto in nafsadiisa ay garaafayso ama shakhsi ahaantiisa ay wax u geysato hadda waxa ay bilowday inay asaga xirxirto waxayna bilowday inay ka furto dhankaas iyo suunka markay dhibaato u geysatay hadda waxa ay sameynaysaa fal xumeed sidaas darteed oo uu ka diiday waxa uuna bilaabay inuu dagaalamo si kastaba ha ahaatee Melinda ayaa aad uga xumaatay wax ay sameysay aad ayaan u naxday balse yarkii ayaa bilaabay inuu dagaalamo oo rabo inuu garaaf u geysto Melinda sidaas darteed asaga ay dhibaato sii gaartay maalintii xigtay Melinda ayaa goobtii shaqada ku soo laabatay balse yarkii ayaa wacay milkiile ku-xigeenkii dukaanka sidaas darteed yarkii markii uu wacay waxa imaaday milkiile ku-xigeenkii Melinda oo iska shaqaysanaysa kana fikiraysa wixii ay sameysay sidii ay ku xal lahayd iyo dhibaato walba sidii ay u doogi lahayd balse waxa dukaanka si lama filaan ku imaaday milkiile ku-xigeenkii waxa uu u sheegay Melinda inay shaqada of ka tahay sidaas darteed aad ayuu u cabsatay maadaama waxa ay sameysay ay tahay waxa shaqada loogu buriyay wax walba ay cid kula laabatana ay sameysay aalin intaas kadib yarkii ku soo balamiyay milkiile ku-xigeenka ayaa imaaday waxayna weydiisay waa maxay sababta waxaan u sameysay iyo waxa kugu kalifay aniga waxaan kaliya caawinayay noloshaada mana rabin inaan sameeyo fal xun intaas kadib yarkii ayaa bilaabay inuu waxaas ka diido oo weydiiyo wax walba meesha ka dhacayo sababta uu dhacayaan asaga oo og wax walba ay sameysay Melinda wuxuuna bilaabay inuu ka hubsado afkeedana oo ka helo wax walba intaas kadib Melinda ayaa u sheegtay waxa inay wax iska caadi yihiin mar walbana ay ku soo kacdo Melinda markii xaafadda ku soo laabatay waxa si lama filaan ku aragtay yarkii oo wali dhibaataysan oo meeshii dhibaato ku gaartay sidaas darteed waxa ay bilowday inay dad kale raadiso oo caawiyo waxayna iska dhigaysaa qof aan wax ka ogeyn oo dhahayso qofkan guriga soo ku dhibaataysan oo u maada camal sidaas darteed markii ay u maadeen way weydiiyeen wax walba meesha ka dhacay sidaas darteed waxa u diiday inuu u gudbaan gudaha wax walba meesha yaalna ay ogaadaan balse waxa uu sheegtay qof dhibaataysan inuu meesha joogo si kastaba ha ahaatee wiilashii mid kamid ayaa ku jawaabay tani macquul maahan waa maxay sababta ay guriga u diidayso sidaas darteed waxa ay bilaabeen inay dhahaan gudaha ayaan galaynaa nidaa mid kamid ayaa ka qaaday waxa ay ku tashanaysay balse waxa dhibaatada keena ayaa ah inay la soo baxday biskoolad mid kamid ayaa asna qori la soo baxay sidaas darteed waxa uu sheegeen inay dhibaatada gaarsiisay ay gaarsiin doonaan waxayna go'aansadeen inay ka tagaan intay dhibaato meeshan ka dhici lahayd sidaas darteed midka hogaamiyaha ayaa ku la taliyay inay laabtaan hadda waxay dhibaato ka taagan tahay sidii ay wax walba ku xal lahayd dukaankii ayayna bilowday inay dhibaatayso ayna sidaas darteed sigaarkeeda ayay daaratay mar walba waxa ay bilowdaan inay dhibaato ku soo kacdo markii ay maskaxdeeda kala wareegto sidaas darteed waxa ay daagarataa sigaarkeedii maskaxdeeda dib ayay soo laabataa hadda waxa ay joogtaa kaalintii shidaalka wax walba ay sameysanaysaa meesha u baahneed balse waxa la yaab kale ayaa ah dukaankeeda ay ku dhex aragtay mid kamid ah raggii hadaaya oo ka haray kaasoo asna dhibaato u geysara una sheegay inuu guriga inuu baara rabo wax walba meesha ka dhacayna uu ogaado sidaas darteed haddii ay iswaasho inuu dhibaato gaarsiin doono hadda waxa uu sheegayaa wax walba meesha ka dhacaya iyo sida ay u dhacayaan in u sheegto
askariga ayaa ku jawaabay waa maxay sababta kuu kaliftay inaad dadka meeshan ku dhibaatayso goob ganacsiina u eg sidaas darteed Melinda ayaa u sheegtay inay sameeysan waxba ka jirin dadka waxa ay sheegayaan ay tahay been abuur sidaas darteed askarigii ma uusan aqoonsan waxa ay sheegayso runna uma qaadan askariga ayaa intaas ka bacd u sheegay go'aankiisa ugu dambeeya waxa uu u sheegay go'aankiisa ugu dambeeya inuu yahay inuu gurigan baaro haddii wax uu ka waayo sidaas darteed ay ku badbaadi doonto Melinda balse Melinda ayaa ka walwalsan wax walba meeshan yaal inuu ogaado iyo qolkan dhibaatada lagu geystay maadaama dad badan ay meeshan dhibaato ku soo gaartay sidaas darteed ayadoo kala labeynaysa ayay u ogolaatay inuu guriga baaro hadda waxa uu ku dhaqaaqay baaristii guriga intaas kadib maxaa dhacay Melinda ayaa rabtay inay dhibaatayso intuu guriga baarayo maadaama uu yahay hal askari oo kaliya balse haddana way kala labeysaa hadda waxay tusaysaa wax walba si kastaba ha ahaatee riyadii Melinda ama go'aankeedii ahaa inay askariga tusto guriga meelaha ammaanka ah ama meelaha aysan dhibaatada ka jirin waa ay ku guuleysatay askariga ayayna tutustay meelihii kore sidaas darteed waa iska laabtay waa una qancay hadda waxa ay joogtaa gurigeeda waxayna rabtaa inay gurigeeda baarto ama ay ka shakisay dukaanka agtiisa ayadoo iska socota ayay waxa Salma filaan ku aragtay yarkii hadaayay filimka bilowgiisa aan ku soo aragnay kaasoo ay u sheegayso wax walba iyo dhibaato walba soo gaari rabtay asiga ayaaba raba oo dhibaato u haay Melinda wuxuuna rabaa inuu ka aarsado dhibaatadii hore ee u geysay sidaas darteed waxay ku amartay inuu halkan istaago oo una imaado meesha ay ku amrayso balse waxa la yaab kale oo dhacay ayaa ah yarkii inuu ka dhiga adeeg wax ay sameynayso Melinda guriga ayuuna galay wuxuuna bilaabay inuu albaabka soo xirto intaas kadib maxaa dhacay Melinda ayaa u sheegaysa inuu albaabka furo haddii kale ay dhibaato soo gaari doonto balse yarkii ayaa ku adkaystay go'aankiisa waxa uuna bilaabay inuu banaanka u cararo markii ay bilowday in albaabka ku riixdana sidaas darteed waxa uu soo sheegay yar kale banaanka maraya waxa uu u sheegay in dhibaato soo gaari rabto oo uu u baahan yahay caawin iyo inuu badbaadiyo yarkii ayaa ka dhiga adeeg balse markii uu yarkii guriga ku soo laabtay waxa uu bilaabay inuu dhibaato gaarsiiyo Melinda sidaas darteed markii uu dhibaato u geystana waxa ka celiyay yarkii kale si kastaba ha ahaatee yarkii ay go'aan ku gaaray intaan kadib inuu dhibaatay doono nolosha Melinda balse Melinda ay aad u cabsanaysa waxa ay bilowday inay telefoon u dirto dhankaas iyo booliiska balse nasiib xumo ma aysan haleelin hadda yarkii ayaa ku soo laabtay dukaankii Melinda waxa uu iska dhigay qof ganacsi u socdo ama nabad rabo balse Melinda ayaa diiday waxayna dhahday in nabadgelyo ma rabo inaan wax ka gato aragtida inaan arkana ma rabo intaas kadib maxaa dhacay Melinda ayaa u sheegaysa yarkii inuu nabadgeliyo oo iskaga tago meeshan haddii uu rabo nafsadiisa balse yarkii ayaa ku dhaga adeeg inuu meeshan ka tago intaas kadib Melinda ayaa bilowday inay dhibaatayso waxayna go'aan ku gaartay inay meeshan isaga dhan ay ku disho saas darteed baskoolad ayay riday waxayna ku dhufatay wiilkii waxa la yaab kale oo meesha ka dhacay ah inuu dhammaan gubtay dukaankii meesha ku yaalay kaas oo ahay hantidii Melinda waxa ay banaanka ku soo baxday iyadoo qeylinaysa si kastaba ha ahaatee askari ay Salma filaan ku kulmay Melinda waxa uu bilaabay inuu gaariga geliyo wuxuu weydiiyay wax walba oo dhibaato ah oo meeshan ka jiray iyo waxa kalifay sidaas darteed waxa ay bilowday inuu sheekayso taariikhdii dheereed ee meeshan ka dhacday filimka halkaas ayuu ku dhamaaday waa kuma santiin daawashadiina fadlan daakaysi like share subscribe na hilmaam mahadsanidin